السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالها شرفت حشمد مدن وين سلاني وقتي هذا قروح بدنا وين رجعين يكسو دواده كليب كان وين ما أنت كسو قادن دونه قصير هذا كوبان ونحر يمرك أي ندون إننا نكره هذنو رسالة فيعان قصده طبعا واقصو إنك إيمان يستدين عافيماتك تختار لورنشري هيلاري بالتون وكنديانها ayaa wuxuu ahaa dhakhtar aad runtii dadka marka value-ga fiican ku dul wadankaas. dhakhtarku in badan ayaa waxa uu ku guuleystay xanuuno aad loo daweyn kari waay. waxa kale oo runtii uu soo saaray in uu helo virusiska wax sababa kuwa badan oo marka ay adkaatay in la helo specieska ay yihiin iyo nooca ay yihiin si dawada rasmiga ah loogu daweynayo iyadana loo sameeyo. dhakhtarkani marka waxa uu inta badan sameyn jiray ama uu ixtiraaci jiray shay cusub inuu soo saaro ayuu ixtiraaci jiray. inta badan dhakhtarkaas uu dhakhtarka active-ka ee firfircoon ee bulshada Kanadiyaanka iyo bulshada caalamka qiimaha aadka u faraha badan ugu fadhiyay ayaa waxa uu arkay dadka oo aad ugu mashquulay buugaag badan uu qoray iyo wax badan oo uu soo saaray ayaa waxa uu arkay number fara badan oo dadka ah oo wax ka sheegay. kadib wuxuu arkay in wixii uu soo saaray manaafacaadka lahaa bulshadu ay ka faa'iideysanayso laakiin dadka qaar ay leeyihiin ay qalad saxayaan. qalad saxu يعني هنا إليه هالكا إنه سيدا كدقا بيهاي هالكا إنه قابكا وتوتشيا بيهاي إنه سيدا وحو توسيا بيهاي هالكا إنه أهرنتا قراركا إنه بردا كبدلا بيهاي بكتيريا دا حلقا إنه صوص صارا ماهاي دوادا حلقا لما هلي كرو وقتقا نو سوا دقدقا أدوغو تعليق بيكا بحيين آدو فرابدان واددكي مركا عهدي نولا يا حلقا كوهاري ريسنا iyagu fadhiidka ahaa ee markaa aan iyagu waxba soo saarayn oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir ay wax soo wada barteen oo ay ka mid yihiin ku professoriski jaamacadaha oo ay ka mid yihiin kuwii iyaguna markaa academiga dadkii ahaa raggii markaas aqoonta lagu tuhmay oo ay ka mid yihiin bulshada kuwii ugu caqliga badnaa ama runtii philosopherskii meesha joogay. dhammaan dadkii markaas maadaama uu ahaa qof genius ah oo aad u caqli badan waxa badatay criticize-kiisa waxa aad u batay canaantiisa. yacni canaantu waxay ku timaadaa qofku marka wax fiican la yimaado. canaantu iskama timaado ilaa shay aad samayso. canaantu iskama timaado ilaa qofku uu wax u bilaabo. waliba canaantan waxa uu arkay inay ku jirto jealous fara badan inay ku jirto infectious fara badan waxasan iyo markaa inay ku jirto runtii hinaasi fara badan iyo waxyaabaha cusub la yimi. kadib saaxiibadii buu la hadlay isagoo xigmada halka ay uga soconaa ay tahay ayaa saaxiibadii buu la hadlay oo qoraalkan buu kula hadlay. arintana sababta aynu soo qaadanayna waxay ku badan tahay geyigeena Soomaalida. inta badan Soomaalidu waxa ay runtii wax ka sheegaan oo ay daba socdaan qofkooda value-ga iyo qiimaha leh ee wax u soo saara ayaa halkii dhiiri gelin lahaayeen ay markaas iyagu ay runtii ay bulpa ku sameeyaan ay dub u ridaan ama ay dub u riixaan. taasina inta badan waxa ay salka ku haysaa aqoonta iyo cilmiga oo markaa bulshadaas iyo dadkaas waanay wali u bislaanin. qoladan xilligan la hadlayo qudhoodu cahdi hore ayuu ahaa waa qarnigii 17aad ilaa 18aad baa lagu tilmaamaa inuu qisadan qoray. marka waa dareemi kartaa iyaga qudhoodu xilligaas bisayl aqoomeed oo dhameystiran ma jiro. waayo qofku marka uu wax fiican la yimaado waa la dhiiri geliyaa waa la iska rabtaagaa xataa waxaas wax basiidaba ha ahaadaane baalasha uu ku duulaya ee uu motivationka iyo inspirationka uga baahan yahay waa bulshada weey. haddaba xigmadan
ayuu ku hadlay runtii isagoo saaxiibadii la hadlayo wuxuu yidhi don't correct my mistakes, make something with mistakes. aniga qaladkaygan ha sixina buu yidhi idinku waxaa samaystaan shay qaldan. yacni bal inta aan sameeyey un sameeya oo macnaheedu yahay inta aniga qaladkayga ku mashquulaysaan idinku waxaad samaysaan shay bal intan aan sameeyey oo kale uuna idinkuna qaldan sameeya. yacnihii waa xikmad meel fog ku dhacaysa. haddii aad tihiin dad markaa credibility fiican iyo reliability fiican iyo responsibility wanaagsan leh bal ummadda waxaad hor keentaan shay aad samayseen oo idinku aad leedihiin oo bal qalad ku jiro bal markaasi la idiin soco. laakiin aniga qaladkaygan faraha badan ee waqtigu idinka lumay ha ku mashquulina. saa laajigeen qof kasta oo walaalkeena oo Soomaaliyeed oo wax soo saara dhiirigelin buu inooga baahan yahay. istaakulin iyo iskaragal waynu u baahannahay in wax la isku ogolaado. shiikha shariifka qof kasta oo Soomaaliya waxa uu leeyahay special talent, waxa uu leeyahay xigmadu gaara in la soo kobciyo dabada looga soo saaro la soo dhiirigeliyo aynu doonaynaa. intaas ayaynu kaga tagaynaa fadlan klibkeeni maanta ku saabsanaa ee runtii xigmadaas aan loo baahnayn dadku inay istaba galaan ama qaladaadka iyo wigiska qofka in la sheego laakiin la sheego wanaaga uu sameeyey, waxa fiican ee uu sameeyey, quruxda uu la yimi. fadlan la sii wadaaga oo u sii sheer gareeya bulshada kale. jecelnahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.